بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استوى جوجتان با الله أود له وحين كبرينا إنه نجبت باديو عذر كان سفمرين كا كورونا فيروس عذر كلبا ما لنا مجمعة سجال يلا باتنكا بشمي لبدا كون يلا باتنكا guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee fariintan sida joogtada maalin walba u heli jirtay waxaan xusuusinayaa anigoo cagta xaajiya in aan hakinayno wixii ka dambeeya maanta oo Jimcaha ee 29 May biidnillaahi kariim iyadoo coronavirus-ka guud ahaanba aan ka hadli jirnay ayay iminka u muuqataa in isbeddello badan ay ka jiraan oo la fududeynayo waxyaabo badan marka la fiiriyo caalamka barnaamijkuna maadaama uu ahaa mid aanu mar walba ku eegaynay xaaladaha coronavirus-ka iyo adduunka in aynu maanta hakino laakiin aanu sugi doono xilliyada kale iyo haddii loo baahdo barnaamijkan ama mid la mid ah cudurka coronavirus waxa uu yahay mid weli ka jira caalamka marka la fiiriyo wadamo badan oo tirada dhimashadu ay aad u badneed marka loo tiriyo ama la fiiriyo wadamada kale ee dunida wadanka Mareykanka tiradu waxa ay gaartay 101,000 oo ruux taas oo loo tirinayo inay tahay mid si xawliya ku socotay marka la fiiriyo adduunyada inteeda kale waxa cudurkaasi uu soo ritay wadanka Mareykanka dad gaaraya 1,800,000 oo ruux taasi oo iyada lafteeda loo arko culays xoog leh madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J Trump oo bishii February hadlayay waxa uu yiri waxay u muuqataa cudurka coronavirus-ku inuu ka dhamaan doono wadanka Mareykanka bisha April laakiin taasi ma noqon hadalkii uu sheegay ee waxay noqotay waqtigu inuu ka dheeraado tirada la qiyaasayna ay ahayd ilaa 60,000 laakiin iminka ay gaartay 101,000 arrintaasi waxa kale oo ka deeriyay qoliyaha caafimaadka ee wadanka Mareykanka oo sheegaya haddii aan lagu dadaalin nidaamka in la raaco oo dhammaan gobolada Mareykanka oo ganacsiga dib u furay ay sii wadaan in si xawliya dadku ay soo arkaan isku qabaamaan inay dhici karto culays xoog leh iyo corona kale inuu mar kale yimaado gobolada iminka Mareykanka ee la sheegay maalmihii u dambeeyay in tiradu ay korortay waxa kamid ah gobolka lagu magacaabo North Carolina gobolka Arkansas iyo Wisconsin wadanka UK oo kaalinta labaad uga jira dhinaca tirada dhimashada dunida ayaa waxa la wadaa barnaamijyadii lagu fududeynayay laguna furfurayay guud ahaanba ganacsiga iyo shaqooyinka iyo iskuulada ayadoo loo ballamay iskuulada in la furo 1 June 2020 ganacsiyadana qaarkood la bilaabay kuwa kalena si rasmi ah loo sheegay in 15 bisha June ay bilaaban doonaan ayaa ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson waxa uu ka dhawaajiyay marka laga bilaabo Isniinta soo socota England dadku inay kulmi karaan tira ilaa 6 qofood iyadoo waliba la kala sikanayo waxa uu sheegay inay dhici karto in qofku uu la kulmo aabihii hooyadii mar qura inuu la kulmo awowihii iyo ayeeyadii mar qura laakiin haddana lagu dadaalo inaan si aadan la isugu soo xoomin Boris Johnson waxa uu sheegay tallaabadaasi inay tahay mid lagu dabcinayo maadaama muddo la kala maqnaa haddii la fiiriyo qoysaska iyo dadka ehelka ah ee iyagu ku dhaqnaa guud ahaanba UK gaar ahaan England qaybaha kale ee UK ayaga laftooda furfurnaan kooban ayaa ka muuqata sida Scotland, Wales iyo waliba waqooyiga Ireland marka la fiiriyo guud ahaanba dunida cudurkan coronavirus-ku waxa uu yahay mid dilay dad aan ka yarayn 355,000 oo ruux iyadoo dhinaca kalena dadka uu soo ritay ay kor u dhaafeen 5 milyan iyo waliba 500,000 oo ruux tobanka wadan ee ugu dhimasho badan cudurka coronavirus tan iyo intii uu bilowday bishii December 2019 waxay kala yihiin wadanka Mareykanka dadka dhintay waxay ka badan yihiin 101,000 wadanka UK dadka dhintay waxay ka badan yihiin 37,000 wadanka Talyaaniga dadka dhintay waxay ka badan yihiin 33,000 wadanka Faransiiska dadka ku dhintay coronavirus waxay ka badan yihiin 29,000 wadanka Spain dadka ku dhintay cudurka coronavirus waxay ka badan yihiin 27,000 wadanka Brazil dadka ku dhintay waxay ka badan yihiin 25,000 wadanka Belgium dadka ku dhintay waxay ka badan yihiin 9,000 wadanka Germany dadka ku dhintay cudurka coronavirus waxay ka badan yihiin 8,000 wadanka lagu magacaabo Mexico 8,000 ayay ka badan yihiin dadka ku dhintay cudurka coronavirus iyo dalka Iran oo dadka ku dhintay lagu sheegay inay ka badan yihiin 8,000 oo ruux wadamada kale ee dunidu aad ayay u kala badsadeen walow tiradan iyada aanay gaarin
lama saadaalin karo cudurkan isaga ah inuu ka suulayo dunida iyo waqtiga uu ka suulayo maadaama uu ku cusbaa waddan walbaana waxa uu ku dadaalayaa intii karaankiisa inuu soo saaro tallaal looga hortagi karo ama daawo markaasi lagu maarayn karo laakiinse ilaa iyo haatan lama oga xaalkaasi halka uu saldhigi doono waxa daawadiisa haya cudurka coronavirus allaha awoodda leh oo keliya dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay feejignaadaan oo dadaalaan oo ay ku dadaalaan sidii ay u ilaalin lahaayeen naftooda iyo dadka kale waxa laga rabaa inay nadaafadda ku dadaalaan alla barigana ay badiyaan markastana aanay ka daalin halku dhigoodii ahaa walaalle hay soo dhawaan yaana ku soo dhawaan yaana isu soo dhawaan nadaafadda aan ku dadaalno baryada eebana aan badinno intaanan barnaamijkan soo gabagabayn jimcahan 29 May waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool dacallada adduunka oo mar kasta oo ay helaan fariintan subax walba ilaa iyo bishii iyo barkii ugu dambeysay mar walba soo qorayay mahad celin kuwa aan soo qorin kama xumi maxaa yeelay waxaan ogahay xaaladaha iyo waqtiyada ay ku jiraan iyo inay dadku mashquul ku yihiin nolol maalmeedka waxaan allaha awoodda leh ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo cudurkan safmareenka ee coronavirus iyo cudurro kaleba Soomaaliyay meel la joogaba waxa la rabaa walaaltinimo alla ku xiraansho iyo dadaal iyo in mar walba la iska warqabo maxamed axmed xaaji cagmadhige iyo bahda telefishinka caalamiga ah ee universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteenna aan ka qaadano ka hortagga coronavirus